kulanti wanaagsan daawadayaasheeda sida tooska ah ugu xidhan page-ka Somali TV qodobada wararkeega ugu waaweyn ee aad ku daawan doontaan ayaa waxa ka mid noqonaya gudida fulinta ee hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxay ogolaadeen in baadhis lagu sameeyo qaabka ay hay'adoodu u wajahday cudurka COVID-19 wararka qaarna waxa ay sheegayaan in qorshaha baadhista hay'adda caafimaadka ee adduunka ay dabada ka riixayaan dalal ka mid ah midowga Yurub iyo waliba dalka Australia. Madaxda qaaradda Afrika ayaa waxa ay wadamada hodanka ah ku eedeeyeen in ay ballanqaadyo ay u sameeyeen qaaradda Afrika aanay fulin xilli qaaraddu ay la hirdamayso caabuqa coronavirus. war maanta ay soo saartay maxkamadda fadhigeedu yahay magaalada Hague dalka Netherland ayaa waxa lagu sharaxay sababta dib u dhigista ee jalwadka baadhista kiiska badda ee u dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo waliba Kenya. dowladda Soomaaliya ayaa arintaasi mar kale maxkamadda waxay ka codsatay in cadaalad kiiskaasi loo eego. madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si weyn uga biyadiiday isla markaasina shaki galiyay dib u dhigista saddexaad ee dacwadda badda isagoo u baaqay madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya in ay soo bandhigaan cadeymaha muujinaya dib u dhigista iyo marmarsiyaha saddexaad in ay iyagu qayb ka yihiin. qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawadayaal aad daawan doontaan ee soo dhawaada mar kale. aynu ku bilownaa daawadayaal qodobkeena ugu horeeya waxa uu noqonayaa gudida fulinta hay'adda caafimaadka ee adduunka ee WHO ayaa ogolaatay in baadhis lagu sameeyo qaabka ay hay'addu u wajahday cudurka coronavirus. qorshahan ayaa waxa lagu eedeynayaa inay dabada ka riixayaan dalal ka mid ah midowga Yurub iyo waliba dalka Australia iyo dalal ka mid ah Yurub ayaa dalbanaya in baadhitaan madax bannaan lagu sameeyo qaabka ay hay'addu u marayso cudurka COVID-19 iyo waliba halka uu asal ahaan ka soo jeedo qorshahaasi. haddaba qorshaha baadhista hay'adda WHO ayaa waxa ogolaaday in baadhis lagu sameeyo 190 dal oo uu ka mid yahay dalka Mareykanka. madaxweynaha dalka Mareykanka Mr. Trump ayaa ku hanjabaya in dalkiisu uu gabi ahaanba ka bixi doono ka mid ahaanshaha ururka caafimaadka ee adduunka. Mareykanka ayaa hay'addan waxa uu ku eedeynayaa isla markaasina uu la xiriirinayaa in ay xiriir dhow la leedahay dalka Shiinaha. gudoomiyaha hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay in lagama maarmaan ay tahay isla xisaabtanku isla markaasina ay hay'addu diyaar u tahay in baadhis lagu sameeyo shaqada ay caalamka u hayaan. qaar ka mid ah madaxda qaaradda Afrika ayaa wadamada hodanka ah waxay ku eedeynayaan in ballanqaadyo ay u sameeyeen qaaradda aanay fulin xilli ay qaaraddu la hirdamayso caabuqa coronavirus. madaxweynayaasha dalalka Kenya, Ivory Coast iyo Nigeria, Senegal iyo sidoo kale Sierra Leone ayaa dalalka hodanka ah ka codsaday in laga dhaafo deymahaas ay u dalban karaan deymo cusub isla markaasina laga dhimo qiimaha dulsaarka. qaaradda Afrika ayaa dalalkeedu yihiin kuwa ugu saboolsan dunida oo idil waxaana cudurka COVID-19 uu ku sababay dalalkaasi dhaqaale xumo aad u baahsan xilli ay dalalka qaari kaba soo kaban kari laayihiin cudurkaasi. markana haddaynu eegno dhanka iyo dalka Liibiya, ciidamada dowladda caalamku aqoonsan yahay ee Liibiya ayaa weerar xoogan waxa ay ku qaadeen fadhiisimada uu wato generaalka howlgabka ah ee Khalifa Haftar. afayeen u hadla ciidamada dowladda ayaa sheegay in ay weerarada wadayaan inta ay dalka ka xoreynayaan ciidamada fallaagada. weerarada ciidamada dowladda ayaa bilaabmay kadib markii uu xabad joojin ku dhawaaqay generaalka howlgabka ee ka dagaalama dalka Liibiya. war maanta ka soo baxay maxkamadda fadhigeedu yahay magaalada Hague ee dalka Netherland ayaa lagu sharaxay sababta dib u dhigista iyo waliba jadwalka dhageysiga dacwadda kiiska badda ee u dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya. maxkamadda ayaa qoraalkeedana ku sheegtay in dacwadda dib loo dhigay ilaa iyo 15 Maarch 2021. warqadan loo soo diray dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa garsoorka maxkamaddu ay ku sheegeen in markii ay dhageysteen codsiga dib u dhigista ee ay u gudbisay Kenya sidoo kalena ay eegeen xaaladda qayrul caadiga ah ee uu sababay xanuunka COVID-19 awgeed in waqtiga furitaanka dhageysiga dacwadda dib loo dhigay ilaa sanadka 2021 bisha Maarch 15keeda.
dhowr jeer oo hore ayaa dib loo dhigay kiiska dacwadda badda ee u dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Codsigaasi ayaa inta badan ka imanayay dalkaasi Kenya, balse markan waxaa la sheegay in codsigan uu xidhiidh dhow la leeyahay saamaynta caabuqa COVID-19. Dowladda Soomaaliya ayaa maalmihii la soo dhaafay si weyn uga biyadiidanay dib u dhigista dacwadda, hase ahaatee waxay sheegtay in ay u hoggaansami doonaan jadwalkaasi cusub. Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka Dowladda Federaalka ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo hogaaminaya guddida dacwadda u qaabilsan Dowladda Federaalka ee Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta Soomaaliya ayaa sheegay in mar walba ay Soomaaliya dalabkeedu uu ahaa in dib u dhigis kale lagu sameeyo dacwadda, laakiin hadda ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Mahdi Maxamed Guuleed waanu ku qasbannahay go'aanka maxkamadda. waxaad ka wada warqabteen in dacwaddii badda ee u dhaxaysay Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo dalka Kenya oo hadda 6 jirsatay ay mar walba dawladdu diyaar u ahayd, heeganna u ahayd, waqti badan iyo juhdi madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan xukuumaddu ku bixiyeen sidii ay u meel mari lahayd oo ay u dhaqaaqi lahayd. waxaan rabaa inaan idin la wadaago 23 Abriil sanadkan dowladda Kenya waxay geysay dacwad ay ku doodayso in dacwadda badda dib loo dhigo muddo aan xadidnayn, sida Af-Ingiriisiga ay ku yiraahdeen indefinite period. dacwadda gebigeedaba muddo dheer oo aan xadidnayn oo aan cayinayn dib loo dhigo. arrinta aad ayaan uga hor nimid qoraal adag oo dood culus xambaarsan oo ku fadhiya sharciyada caalamiga ah ayaanu u gudbinay maxkamadda cadaaladda adduunka 1 May isla sanadkan oo aan ku diidanahay kuna doodayno in maadaama 2 goor oo hore dib loo dhigay dacwaddaas dhageysigeeda in aan la dhaafinin laguna dhageysto bisha June 8 ilaa 12. dooda Kenya waxay xambaarsanayd in cudurkan dunida aafeeyay oo iyaga iyo looyaradoodii kala xidhay dalkuna ku jiro bando oo aanay suurtagal u ahayn in looyaradoodii arkaan. 2 iyo in dhaqaalahoodii uu saameeyay oo ayna u haynin dhaqaalo ay looyarada ku kireystaan. annaga doodadeedu waxay ahayd hal cadaysan geed ay ku xoqotamo weydo cadaaladda oo dib loo dhigaa waa cadaaladii oo la waayay in si nabad ah oo cadaalad ku dhisan dooda garmaqalkeeda loo dhageysto Soomaaliyana iyo shacabka Soomaaliyeedna ay cadaalad helaan. waxaanu ku adkaysanay inaan 8 June dib loo dhigin waqtigeediina maxkamaddu habka video conference-ka ay ku dhageysato, waayo maxkamaddu waxay soo saartay inkastoo ay ku cusub tahay nidaamkani in dacwadaha ay maqli doonto wixii 31 May ka dambeeya ay online ku dhageysan doonto sida ay u kala culus yihiin iyo sida ay u kala fudud yihiin iyadoo qiimeynaysa maxkamadda awooddaasna iyadoo iska leh. Kenya mar labaad iyadoo aan cidnaba aynan weydiisan ayay 2 May ka soo 4 May sanadkan ka soo jawaabtay doodii adkeyd ee Soomaaliya oo aanu ku diidanayn dib u dhigka dacwaddaas. Soomaaliya waxay mar labaad fursad u heshay in ay ku celiso dood culus oo ay maxkamadda cadaaladda adduunka ka codsanayso 7 May ee sanadkan in aan dib loo dhigin waqtigeediina la dhageysto looyarada iyo dhinacyaduna iyagoo guryahooda kala jooga, dalalkooda jooga, goobahooda jooga, maxkamaddu ay online ama video conference ay ku dhageysato. hayeeshee maxkamadda cadaaladda adduunka ikhtisaaska iyada iskale, go'aanka iyada iskale, qaraarka ay soo saarayso iyo qiimeynta ay sameeynaysan maxkamadda ayaa awoodda kama dambaysta Ilaahay idinkiisa iskale laguna kalsoon yahay dhinacyaduna ku kalsoon yahay. maxkamaddu maanta makhribadii waxay soo saartay go'aankan oo xambaarsan go'aanka dib u dhigista oo ay maxkamaddu gaadhay iyo jadwalka cusub ay maxkamaddu u soo saartay oo bogga labaad ka hadlaya dhageysiga dhinacyada ay dhageysanayso. waxay maxkamaddu soo saartay go'aan ah in ilaa 15 March sanadka 2021 dhageysiga dacwadda u dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya dib loo dhigay lana dhageysan doono 15 March 2021, 17 March iyo 18 March iyo 19 March. muddada 4 cisho ah oo 2 cishana ay Soomaaliya leedahay 2 cishana Kenya leedahay. maxkamaddu waxay ku sababaysay xaaladda qeyrul caadiga ah ka dhalatay sida ay qoraalkeeda ku tiri COVID-19 cudurka dilaaga adduunyadii kala wada xidhay oo xaalad
gaar ah oo aan lagu xisaabtamin ah awgeed inay maxkamaddu dib u dhigtay muddadaas 9 bilood meelaha ku qiyaasan oo ka bilaabmaysa ku eg in la dhageysto 15 March 2021 maxkamaddu waxay ku celisay in dooda kaliya la dhageysanaya ay tahay mid afeed oo aan la aqbali doonin dokumentiyo iyo qoraallo cusub oo aan awal la soo gudbinin mar kale oo hadda maxkamadda dib loogu gudbiyo waayo dooda qoraalka horaa dhinacyada looga dhageystay horay u dhamaatay wixii ka dambeeyana waa go'aanka kama dambaysta ah ee maxkamadda cadaaladda adduunka inay soo saarto garsoorayaashu ka fadhiistaan dhinacyaduna ay helaan oo Soomaaliya ay hesho cadaaladii muddada dheer ay u soo halgamaysay ay u safraysay ka dhursugaysay inay ka hesho maxkamadda cadaaladda adduunka. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shiki waxa uu galiyay dib u dhigistii saddexaad ee dacwadda badda isagoo ku booriyay madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya inay soo bandhigaan cadeymaha muujinaya in aanay iyagu qayb ka ahayn marmarsiyaha dib u dhigista markii saddexaad ee dacwadda kiiska badda u dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya. Dunyadii waa cusub u bariyay horaa loo dhaqaaqay كورونا جرال الشقيستوها والله الشراء مو دولدين هذا الشركة إسكت دافت أيده أنا الشراء ما قرناه لكن وحنا أقول عالم كواسع ونولي هاي ولا شروها جمعية غرماء كده عسوا شرطة هي هذا عالم كده واشران ما ذش حزبية ده أقول بيسوا أركيسين واشرطة أسبوعي ما لنا شرطة أيده ضلك دبدي سكول لحظة قدومي حزبي لحظة حزبي ما ضحك هل قدومي حزبية ضلك لا بقدومي حزبي ما يستغفرون لا بقدومي حزبية ضلك قديس كجوبته هل حمر جوجي هل قروه جوجا أفرتك هل دبدي جيران وأنا للشراء مالين كست ولا سكوي ماذا محكمة عالمي قاعد تكنولوجي أي كشرته هذا اللي أهد أول بمحكمة ولا هدلاي ضاد أهد ضاد أي كشرته ما قبت عقل هذا مال أي كو هذا الشيء كو قد بس ما قبت أود داس مالها تكنولوجي قاس ما قبته وحاس إن اللي يرادو وحقوها يستعني معقول ما محكمة عالمي قانا ما تحقلني هل نعلم ما تحقلش شال هدي كي يكون ضد الله يردي أن فايريني أن فاير قرينه وشقد كيرني الله يرعسب إن قاضنا وقت إنه قبها هنتاي قد يدي إن فهم سنين وقت إنه قبها هنتاي ولا أقبله ما أنت هذا كورونا جرو كورونا عالم كله مو كجرا كي أقارما سومالي أقارما عالم كله مو كجرا qodobkaasi ayaa gabagaba u ahaa daawadayaal wararka Somali TV tan iyo kulanti dambe waa aniga Cabdirashiid Cali Barro idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo.